inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa maanta deegaanka tuna koonfurtaag magaalada hargeysa askaran loogu sameeyey marxuun nabadoon cabdikariin xuseen cabdi waraabe oo ku magac dheera xaaji cabdi waraabe oo maalinimadii shalay aad ku geeriyooday gudaha magaalada hargeysa aaskani qaran ee loo sameeyey nabadoon marxuum cabdikariin xuseen cabdi waraabe ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixa cabdi madaxweynihii hore ee somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo madaxweyne ku-xigeenadii hore ee somalilan mas-uuliyiinta asxaabta mucaaridka iyo kuwa muxaafidkaaba iyo sidoo kale isamo garaado iyo ehelkiiyo qaraabadii marxuumkani dhanka kale waxaa iyaguna ka qaybaa culimada waaweyn ee dalka iyaguna ay dhammaantoodba halkaasi alla uga baryeen in marxuumkani jannatulfirdowsa ka waraabiyo xaaji cabdikariin xuseen cabdi waraabe ilaahay naxariistii jannaha siiyo xaajigu wuxuu ahaa nin taariikhdiisa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba ay ka dharagsan tahay ilaahi weyna ilayhi raajicuun ilaahay waxaan ka baryaynaa marxuumka xaaji cabdikariin xuseen yuusuf inuu naxariistii janno ka waraabiyo marxuumka qiimaha uu ku fadhiyo iyo qiimaha uu ugu fadhiyo ummadda afka Soomaaliga ku hadasho oo dhan waxaynu ka garan karaynaa aaska waxaynu ka garan karaynaa idaacadaha iyo saxaafadda Soomaalidu sida ay ilaa shalay uga hadlayeen inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaynu maanta joognaa aaskii xaaji cabdi xuseen yuusuf oo in lagu naanaysi jiray cabdi waraabe marka ugu horraysa ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa addoon wanaagsan buu ahaa cibaado badan buu lahaa samafal badan buu sameeyey oo samafalka ugu qaalisan ee nabadgelyada bini'aadmiga oo uu samir badan u lahaa ilaahay ha u aqbalo maanta waxaynu halkan isugu nimid innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geesigeennii weynaa xaaji cabdi ilaahay naxariistiisa allaha siiyo kullu nafsi daaqitul mawt ilaahay saasuu inoogu ballan qaaday in naf kastaba ay dhiman doonto ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala inuu jannadii ka waraabiyo kitaabkiisina gacanta midig ka siiyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa iyaguna ka qayb haaskani qaran ee loo sameeyey marxuum cabdikariin xuseen cabdi waraabe iyaguna halkaasi alla uga baryeen marxuumka inuu jannatulfirdowsa ka waraabiyo isla markaana samir iyo iimaan ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu marxuumkani ka baxay afka dowladda deegaanka Soomaalida ahna wakiilkii madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa waxaanu u nimid inaan ka tacsiyeyno madaxweynaha Somaliland shacabka Somaliland iyo dowladda Somaliland baa geeridii ku timid الله نحرسته حاج عبد الكريم حسين يوسف حاج عبد ورابه وحلينا الله نحرسته حريستي جنة الله كورابيو أجلس كلام مدحونه موسى بيح عبدي مدحونها سوماليلاند أيها كورما تاريخ دي سويا مرحون عبد الكريم حسين عبد ورابه وما المدينة مانتا لقوا عصيد ديجان كتوني من فرتا مقالة هرجيزة حسين أو بقولي الله كوريا لا تسنشري نفكستو عمر الإير معلم بالعاصية qof kastoo da'ooba marba arbay ajashiisu leedahay taa la ogaado xaaji cabdi taariikhdiisa daqiiqada halka laga hadin lagu soo koob maayo wixii af Soomaali yaqaanaana waa yaqaanaa waa wada ogyahay taariikhdiisa ajnabiga Soomaalida la shaqeeya ee yaqaanaana xaaji cabdi waa ogyihiin oo taariikhdiisa qoraal iyo video boo lagu hayaa xaaji cabdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa sabawade murti dhaariya dad wad leh ummadda isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhamaystay marxuum cabdikariin xuseen cabdi waraabe oo maalinimadani maanta lagu aasay deegaanka toona koonfurta magaalada hargeysa isla markaana geeriyooday maalinimadii shalaheed ayaa si weyn geeridiisa looga dareemay dhammaanba dunida iyo sidoo kale deegaanada ay Soomaalidu ku nooshahay iyadoona aaskani maanta qaran ee loo sameeyay ay ka soo qayb galeen dhammaanba dadka magaca iyo migilka kula deegaanada Soomaalidu ay ku nooshahay iyadoona ay isaga kala yimaadeen meelo ka baxsan magaalada hargeysa iyo sidoo kale Somaliland Soomaali Cabdi Axmed Karinle Kalson TV Hargeysa